hurdada aan sii macaansaday waan diiday goortii saxarka waqtiga fajarka hal saac meelaha ka horeyso hal saac iyo 2 saac ka hor baa fajarka saxar la yiraahdo waa waqtiga mu'minka iyo mu'minada ayna habooneen inay hurdaan way inay soo jeedaan ay tahay waqtigaas ilaahay amaanay wal mustaghfiriina bil ashar ayay tirmaa miyadan adoon wanaagsan ahayn maxaan kugu dhacay habeenkii waa tagay ka markaasaan kacay oo weysiistay waxaan maqlay buu yiri ameesha qasada loo jeeday iyadoo sujuudsan oo leh allahumma bihubbika li faghfir li allahumma ilaahayow bihubbika li jacaylka aad jeceshahay baan kugu bariyay ighfir li dambi dhaaf ma fahanteen warkaas hadda may oran ilaahayow jacaylka aan ku jeclahay igu dambi dhaaf ila jacaylka iyadu ilaahay jeceshahay way ka hadli kartaa laakiin jacaylka in ilaahay iyada jecel yahay uu sheegay marka ilaahayow jacaylka aad jeceshahay dartii igu dambi dhaaf ayuu su'aal ka weydiiyay wuxuu yiri yaa ku sheegay gabar yahay in ilaahay ku jecel yahay jawaabteeda maqla lan la yaaba waa arinta laga hadlayo ee lagu sheegay xalaawada iimaan gabadhaasi waxay tiri waman laa yudrini annahu yuhibbuni sheeban ku ogaan waayay inuu ijecel yahay waqad abaaha li wuxuu ii ibaaxayay oo ii furay oo ii ogolaaday munaajatihi inaan isaga la faqo طول الليل habeenka oo idil وأنامك أنت وأمثالك adiga iyo kuwa kula midana uu sheexiyay oo u diiday albaabka oo ka xidhay anigana wuxuu ii ogolaaday caawadan inaan hortaagnaado oo aan la munaajoodo marka seen ku ogaan waa inuu jecel yahay وصدقت رم بشكتي إلهي إنه كجعل يهي وعلامة إن عبادتي شكون معناته إن dadku marka ay cuslaystaan faradka lagu leeyahay oo salaadii cishii aan iska rido bay oranayaan qaarkood aan iska rido culays saar aan iska tuuro kuwaas marka iyagu salaada culayskeeda iska tuurayaan adigu salaadii waad ku macaansanaysaa